soo dhawow. sawirka idin muuqdo waa wasiiradda arrimaha gudaha dalkan Jarmalka iyo wasiirka arrimaha gudaha dalka Poland. wasiiradda dalkan ayaa waxay booqasho ku tagtay dalkaasi Poland ayadoo la kulantay dhigeedii wasiirka arrimaha gudaha dalkaas. kadibna waxay ka wada hadleen arrimaha qaxootiga ee ka soo qulqulayo xuduudda labada dal Belarus iyo Poland. kadib sidaan ognahay wasiirka wuxuu u sheegay in hore ay dowladda Poland uga dhistay xadkeeda siliq gaarayo ilaa iyo 5 mitir, kadibna ay ku xirtay koronto, laakiin ilaa hadda siligaasi wax muusan celinin. dadkii way ka soo qulqulooyin, waa laga soo boodooyaale waa la soo galooyaale. kadib wasiiradda arrimaha gudaha dalkan ayaa waxay soo jeedisay in arinta xuduudda lagu wareejiyo wakaaladda qaabilsan xuduudaha Yurub Frontex in la dhahayo malena. labadaas wakaaladaas in lagu wareejiyo ayada ay kontaroosho qofka ka soo gudbayo xuduudda iyo qofka kalaba. sidoo kale waxay eedda korka ka saareen labadoodaba, waa labada dowladood ee Jarmalka iyo Poland, in arintan dhanba ay ku lug leeyihiin ay qaxootiga soo fasaxooyin dowladda Ruushka iyo Belarus. ay u fududeeyeen inay qaxootiga ka soo gudbaan Ruushka ay Belarus imaadaan, kadibna saas ay Yurubta kale ugu soo gudbaan sida Jarmalka iyo wadamada kale u dhow. marka qaxootiga wax reebay male, waa furan yahay xuduudka.